caawa halkan jaaliyadda Soomaaliyeed iyo jaaliyadda reer Puntland ee ku dhaqan magaalada Melbourne waxa ay halkan ugu dabaaldegeen munaasabadii sanad guurada 27aad markii dhidibada loo taagay dawlad goboleedka Puntland waxa balankeedu yahay oday heshiiska ku qoriyooday Soomaaliya soo baxooday bukaanka xanaaniyooday kabaha waxsiyooday kubeeraaliyooday amaanka balaariyooday madeena ilaaliyooday khayraadka la soo baxooday halkan waxa sidoo kale kala soo qayb galay aqoon-yahano haween dhalinyaro iyo waxgarad ka soo jeeda magaalada Melbourne waxa munaasabada sidoo kale marti ku ahaa abwaan fanaan Ali warsame Ali Puntland loo yaqaan oo ka yimid dalka Ingiriiska kaas oo halkan caawa ka qaaday heesa caan ku ah deegaanada Puntland taas oo dadkuna si aad ay ugu riyaaqeen عرضيتي على كان كوغاتو إركامي دفكاغا أوالا ودورتي أركينا بعيلي أولاد كوغوغاكتي إنادن اللومبان كسي عدكي عوالها أوي إنادن اللومبان كسي عدكي عوالها أوي عالمكي كنت لامبا كياري رفكاغي كموضة عريونا بروي عوالي هواي عدانك كموضة عريونا بروي عوالي هواي وغورين واتن دوميها جالية بوتلان مرور رضوان علي run ahaantii saa in badan ba u ogtihiinba Puntland dawladnimay u dhaqaaqday inay dhisato 1998 sanadkaas aad baan u yaraa laakiin haddii aan isweydiino caawo 27 sano maxaa Puntland u qasoomay yani waa su'aal isweydiin mudan haddii aan dib u melelecsano xasuus aan u galno reflections aan sameeyno Puntland maxaa u qabsoomay marka 7 qodob baan soo qoray aniga intaan khibrad ka haysto oo research aan sameeyay ama la iiga sheekeeyay ama aan ogahayba 1998 waxaa la asaasay Puntland dawladeeda sida loo helo dadka meesha degan si ay u helaan amni sugan bulshadeeda u adeegto deegaanka dadka wada degan oo dhan siday nabad ugu noolaadaan waayo sanadihii ka sii horeeyay waa waqti aad u adag bay Soomaaliya oo dhan u ahayd marka Puntland qayb weyn bay ka qaadatay waata magac dheer loo bixiyo ah hooyada federaalka marka maamadeena 1998 2004 again waagaas high school baan dhiganayay Puntland maxay qabatay 2004 soo celinta dawladnimada federaalka Soomaaliya marka dhamaanteenba Soomaali baan nahay taas aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in yani Puntland waagaaseta Allah u naxariisto halgame iyo hogaamiye madaxweyne Abdullahi Yusuf ay uu hogaaminayay ayuu u horseeday halkan ii sheeg haykalka dawladnimada oo isla markaasaytana yani garoonka Elborka la furay dekada Muqdisho la furay normality dib u soo noqotay
for Somalia. Midda saddexaad waxa weeye horumarinta haykalka dowladnimada inta uu madaxweyne asagana Cabdiraxmaan Faroole xilligaa uu hayay oo dhisay astaan Puntland, calanka Puntland, heesta Puntland, xafiisyada wasaaradaha iyo dastuurka Puntland oo hadda aan ku dhaqmayno. horumarkaas iyo xilligaas kadib waxaa kaloo la dhisay garoomada diyaaradaha ee Boosaaso iyo Garowe taasoo sii xoojisay isku socodka geedi socodka iyo ganacsiga. midda kale aan igu darayo waxa weeye the one aan kulligeen ba wada ognahay oo maran dhaweyn le yani maran aad u fogeyn oo hadda dhow ay ahayd midda la dhaho one man one vote 33 local councils markaan dib u fasiro siyaasadda iyo dowladda iyo yani administrationka Puntland the way halkan Australia aan ku noolnahay waxaan qabnaa 3 dowladood federaalka midda dhexe iyo midda hoose marka taas wax qabad iyo yani heer dowladnimo sare ay aniga ila muuqataa in 33 local councils oo iyaga ay dooranayaan who's leading them qofka ay la xisaabtamayaan oo hogaaminayo that's a big accomplishment for Puntland. maanta farxadatan iyo sharaftatan iyo qiimeeytan madashan ay leedahay waxaan rabaa inaan idinku duwo dhanka TV-ga ama screen-ka oo uu inagala hadli doono madaxweyne ku-xigeenka Puntland Ilyas Cusmaan Lugator oo khadka inoogu jira insha Allah inooga sheekayn doona inala wadaagi doona farxadda iyo reereynta maantayto ay Puntland iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed u dabaaldegayso 1 bisha Agosto 2025. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaamayaa jaaliyada ballaaran ee muga weyn ee Australia magaalada Melbourne waxaan salaamayaa wakiilka dowladda Puntland Mukhtar Kilwe gudoomiyaha jaaliyada Ridwan Ali iyo gudoomiye ku-xigeenka jaaliyada Abdullahi gudoomiyaashii hore ee jaaliyada waxaan salaamayaa dhammaan aqoon-yahanka siyaasiyiinta odayaasha haweenka dhalinyarada bulshada qaybaheeda kala duwan ee jaaliyada Puntland iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee munaasabada tan qiimaha weyn dadka Puntland iyo dadka Soomaaliyeed ba u leh burburkii dowladii Soomaaliya ay naga duntay Puntland waxay 1998 ka asaasmay dowladda Puntland ee qaan gaadhay horumarka weyn ku talaabsatay oo dowladda maanta joogta ay tahay dowladdii lixaad ee Puntland soo marta waqtiguna uu yahay 27 sanadood runtii Puntland asaaskeedu wuxuu ahaa himilo intii dhaqan lahayd ee siyaasiyiin lahayd ee aqoon-yahan lahayd ee haween lahayd maalintaa gartay inay asaasaan waxay uga tageen bulshada Puntland iyo Soomaaliya dhaxal weyn Puntland waxay asaas u tahay Soomaaliyada cusub ee federaalka ee dimuqraadiga oo ay tahay state-ku ugu horeeyay maanta dowladiskii Soomaaliya oo dhani markii carta kadib embagaati lagaga soo heshiiyay nidaamka federaalka maantana maaragtay Soomaaliya mar walba ay hormuud iyo dowladiska Soomaaliya ay horumar ay tusaale u tahay dowladda Puntland waxaan idinka mahad celinayaa garab istaagii aad garab istaagteen
halgankii weynaa ee argixisada caalamiga ahayd ee daacish lagu soo duushay mandaqadeenna aad ka qaadateen oo runtii deeqsinimada ahayd garab istaagga ahayd iyo wixii weyna aad ku biiriseen ciidamadeena geesiyaasha ah runtii dagaalkaasi muddo 8 bilood u socday dowladda Puntland iyo shacabkeeda isku duuban iyo ciidamadeena geesiyaasha waxay ku tallaabsadeen guul la taaban karo oo argixisada caalamiga ahayd ee dowlado badan oo waaweyn ay sanado badan la dagaalamayeen muddo kooban lagu soo cirib taray haddana maraya xilli gabagaba ah dowladda Puntland ay weli u qorshaysan tahay inay calmadowna ee argixisada kale ee shabaab ee ku gabanaysa insha Allah iyagana in waqti kooban laga saaro marka hore waxaan idin dardaarmayaa midnimada jahliyadda waxaan idin dardaarmayaa wada jirkiina waxaan idin dardaarmayaa inaad isgarab taagtaan saad hore isugu garab taagteen ciidamadeenna oo dagaalka weli lagu jiro xilli dhowna insha Allah kana uu gabagaboobi doono kii kalena la rabo maaragtay insha Allah in dhaqso loo bilaabo waxaa dowladda Puntland iyo dadkeedu ay ku tallaabsadeen iyagoo wada jira midaysan inay qabtaan wax kasta oo dowladnimo aasaaskeedu ahaan lahaa waxay Puntland ka heshay aasaaskeedii dekedo erebordo infrastructure weyn dhismo jaamacado dhismo aqooneed caafimaad iyo horumar iyo dowlad xidido weyn leh oo runtii aad ka garan kartaan 8 bilood dowladda Puntland iyadoo dagaal ku jirtay oo dagaal adag oo weli aan caalamku maaragtay saaxiibo kooban oo waxyaabo kooban ka caawiyay xagga hawada iyo mooyee dhaqaalihii Soomaaliya lagu talgalay $1 ka helin inay dagaalkaas ku guuleysatay haddana dowladnimadii kale ay socotay runtii waxaan haddaanu nahay dowladda Puntland aanu shacabka ugu bishaaraynaynaa inay horumarka iyo guusha dowladnimo aynu haysana ay tahay mid lagu sii naalon karo mid Soomaaliyana mar walba waxtar weyn u ah iyo Soomaaliya inay waxtarta diyaar u ah Soomaaliyana waxaan u rajaynaynaa khayr idinkana jaaliyada waxaan idin rajaynaynaa guul waxaan leenahay dabaaldeg wanaagsan isgarab taagga ciidanka mar walba waa arrin la idinka sugayo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عرضيتي علنك القدرتو عقار كبر وهو عقاك تدركيسي بيجي سوت قنبا أدوك كوعاني أبو عبسي دابا إلو فقياي صومالي عيني maanta waxaan u dabaaldegaynaa inay 27 sano gaadhay oo soo jirtay kowdan bishan 1 August asaasida Puntland waxay ahayd tilaabo taariikhi ah oo u horseedaysa dhismaha iyo socdaalka federaalka Soomaaliya Puntland dowlad ahaan markay u dhisantay waxay leedahay sifooyinkii ay ku gaari lahayd horumar iyo guul maxaa yeelay waxay ku taallaa mowqic istaraatiijig ah oo Afrika iyo Arabia u dhaxeeya oo haddii ilaahay ku ron yahay tijaarada adduunka 20% ay dhex marto Puntland waxay leedahay hodan ku tahay waxyaalo dabiici ah oo xagga beeraha macdanta iyo wixii la mid ah waxay kaloo hodan ku tahay dad karti iyo aqoon u leh inay dalkoodii dhisaan oo hawl guul ka gaaraan إلهي سبحانه وتعالى وحي آيات كله وحكويدي يا أيها الذين آمنوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حرق إلهي قبصدا هانا تفرارقنا ميل كستا جوكتان هدا ودك جوكتان هدا غربة جوكتان ميل كستا جوكتان با قعمها إلا اسقبصدو أو إلا اسكاشدو أيا اللو باهيه waxaan kaloo halka marka munaasabadan maradan isu soo istaagay halka munaasabada meesha loo qabtana ay tahay farxad oo lagu faraxsan yahay sanad guuradii 27aad asaaska Puntland waxaan leeyahay hambalyo waxaan u hambalyeynayaa maaha Puntland oo kaliya
maaha shacabka puntland oo keliya shacabka soomaaliyeed oo dhan baan u hambalyaynayaa waayo puntland waa asaaskii federaalka waa asaaskii markii camalka xumeyn ugu dhacay shaydaanku maaragtay ummadda isku diray ee la isdilay asaaskii ay ka asaasantay hadda dowladnimada hadda jirta iyo maamulada hadda jira oo dhan waxa ahayd puntland soomaaliya ha noolaato puntland ha adkaato ha horumarto caawa sibaad u qabowdihiin waxaan jeclahay horta inaan idiin soo gudbiyo salaan qiimo badan oo salaan Soomaaliya salaantii islaamka salaantii gobonimo doonka salaantii jawxo iyo hambalyadeeda idiin soo gudbiyo oo ilaado sanad guura wacan aad iyo aad u salaamantiin reer puntland iyo dadkii soo qaban qaabiya xafladan qiimaha badan ee lagu xusayo wax qabadka iyo jiritaanka dawlad goboleedka puntland oo dadka Soomaaliyeed macno weyn ugu fadhido dhabahaan markii la asaasay puntland anigu waxaan joogay magaalada Liyasanco maalinkii lagu dhawaaqay 300 baan haystay oo dollar wax la hadiyad baan u bixiyay Soomaalidii joogtay Sanco oo dhan baan martiqaad u sameeyay oo ku wari dawladda Soomaalida soo noqon doonta waxayna ka bilaabi doontaa puntland waxay dawladda Soomaaliyeed rajo yeelanaysaa inay soo noqoto dad badan baa joogay oo wali nool cali xaraara kamid ah kan wariyaha reer puntland yaa kamid aha waxa kamid aha safiirkii Soomaalida ee bariga joogay magaalada Liyasanco marka aan u soo daadago ujeedadayda waa ku mahadsantiin annagana inaad ugu marti qaadaan xafladan qiimaha badan ee jaaliyada ugu xoog badan ee dibadda ka jira ee puntland leedahay jaaliyada Melbourne baa ugu wax qabad badan iyo mid la yiraahdo muxuu ahaa Minnesota labadaasba aad bay wax u qabtaan waan la soconaa wax qabadkiina aad iyo aad reer puntland anigu hal baan leeyahay xornimadii Soomaaliya door weyn bay ku lahaayeen iyaga iyo galmudug iyo gobollo kale oo lagu daray oo ogaadeen ka mid tahay dib soo celintii Soomaaliyana door weyn bay ku leeyihiin haddana waxaa laga rabaa galmudug iyo puntland inay Soomaaliya dib u mideeyaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته habeen wanaagsan hamiin faylan sababta aan leeyahay hamiin faylan waxay tahay dadka ka ganacsada puntland 99% waa dad ka yimid koonfur galbeed marka haddii aad booqasho ku tagtid puntland oo jeceshahay inaad dukaameysatid waxaa ku qasban tahay afka maayga inaad baratid sida aad ka warqabtaan badankiina aad ogtihiin waxa la yidhaahaa federaal asalkeeda waxay ka timid dadka koonfur galbeed ku abtirsada ayay ka timid waxay soo jeediyeen intaan la qaadan xorriyadda in Soomaaliya ay noqoto dawlad federaal ah waa laga diiday riyadaasi waxaa rumeeyey puntland haddaysan ahaan lahayn federaal ma jireen waa tii la yidhaahdo mataqaanaa hooyada federaalka taasi macnaheedu waxay tahay ayaga ayaa asaasay dimuqraadiyaddana ayadaa ugu horeey ilaa hadda waxaa isku bedelay ilaa iyo 6 madaxweyne ayaa isku bedelay abwaanka cali wuxuu yidhi ku dayo puntland ku dayo dadku macnaheeda waxaa laga yaabaa badankood inaysan fahmin ku dayo puntland ku dayo example yar ayaan idin siinayaa gabadhaan adeer ku ahay oo halkaan igu casuntay Ridwaan Cali waa qof dumar ah markii loo fiiriyo jaaliyadaha waddankan ka jira waa jaaliyad ugu horeyso qof dumar dooratay waa puntland taasi macnaheedu waxay ahayd in lagu daysado ay mudan tahay Puntland
ba mare quruxdiisa bada dalxiisku baahaya Puntland wixii laga oranayo waa laga yiri ilaahay waxaan uga barjaynaa horta horumar waara iyo midnimo waxa la sheegay inay tahay hooyadii Soomaaliya ay tahay waxaan rajaynaynaa inay noqoto caasimadii midnimada inay noqotaan rajaynaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa inay noqoto tii hoggaanka u haysta midnimada Soomaaliya ha noolaato Puntland ha noolaato aad bay u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi salaan kadib sida walaalkay deeqba sheegay anigu waxaan ahay wakiilka dawladda Puntland waxaan ku hadlaa afka dawladda waxaan rabaa marka hore waxaan idinka wadaa halmalyo madaxweynaha dawladda Puntland iyo madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne Ilyas Lugator waxaan rabaa jaaliyadan meelo badan bay soo martay caawa inaan hadallada soo koobno si aynu u ogaano muhiimadda ay noo leedahay xafladda tani waxaan rabaa inaan marka hore aan walaashay Ridwaan ugu hambalyeeyo shaqadan quruxda badan oo ay soo abaabushay waxaan rabaa inaan qof kasta oo Soomaaliyeed ugu mahadceliyo inuu halkan xafladdan ka soo qayb galay Puntland sidaad wada ogtihiinba horumar badan ayaa ka socda waxay ku jirtaa dawladdu difaacyo badan ayay ku jirtaa waad ogtihiin oo sanadkan xafladii la dhigi lahaa dawladda waxa lagu taakuleeyay dhaqaalahaas ciidamada dawladda Puntland oo ka dagaalamaya calmiskaad sida kale waxaan rabaa inaan idinku bishaareeyo in wiigagan soo socda aad maqli doontaan mashaariic badan oo dawladdu ay maaragtay xarig furi doonto sida gobolka Mudug gobolka Highland iyo Sanaag sida kale gobolka Gardafuul insha Allah Ridwaan Ali caaw waxa la yiraahdaa Deeman Ali yes Ridwaan ogow deemanay ogow ada arabida jacay naftayda ku abuurayo adanku oo maale hadaan idinkood hablaha anigu ka ageegtayo afkiyo beerkiyo wadnuhu aday ku ammaansadaan salaanka bacdi wax badan anigu ma raba caawa inaan idhaahdo dee odayaashii iyo dadka hore baa iga horreeyey laakiin waxaan rabaa inaan wax yar idhaahdo oo ku saabsan ururka aynu hadda doorannay haddii la doorto qof wax garanaya dadka hore waxay u ekaadaan wax garanaya waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mar labaad ururka jaaliyadda Puntland ee Australia ee Ridwaan hogaaminayso waxaan kale oo runtii aad ugu faraxsanahay muddadii yareedu ay joogeen waxa ay qabteen waxaan ka filaynaa waxa hadda ay qabteen wax ka sii weyn runtii anigu Ridwaan iyo Cabdullaahi Dadir yar bay ahaayeen markii Puntland la dhisayay laakiin anigu waxa weeye wax badan baan ogahay oo la qabtay oo la qaban doono insha Allah hadda dhow muddo ay ka yar bil baan ka soo moogahay Puntland si fiican baan ula socdaa siyaasadda hurida intay ka bariiqatiyo intay ka bashiishato عدي بدوكي لوغي كبيرا Soomaaliya Puntland waxaa sharaf weyn ii ah in aan hambalyo u diriyo dhammaanba ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland meel kasta ay joogaan waa farxad inay 27 jirsatay mashaariic badan iyo horumarna la gaaray
awood ciidan iyo awood isku filnaansho la gaaray puntland waa ujeedaa ayadaa difaacday buurihii calmis silsiladda goolis wixii ciidan ajnabi ahaa yimid ee ka yimid isis iyo meel walbaba puntland ayadoon cidna kaashan aan ahayn waddamada ay saaxiibada yihiin moogiye ayay difaacday waxaana garb istaagay jaaliyadaha puntland ee meel walba jooga oo taageeray kuna taageeray dhaqaale iyo qalbi wanaagsanba dhammaantiin waa idin salaamayaa soomaali maxamed jaaliyadaha kala duwan ee ka soo qayb gashay xafladda sanad guuradii 27aad ee dhalashada reer Puntland aad baa u mahadsantihiin waxaan mahad u celinayaa marka koowaad ilaahayga subxaanahu wa tacaala isugu keenay dhammaanteen meeshaan annagoo faraxsan farxadna aan ku wada qaadanayno waxaa gabta loo camirahay loo cayaarayaa waliba cartamaya oo loo caleema luulay calan Puntland weeye caraftiisa lala cajabay calan Puntland weeye caraftiisa lala cajabay caynaaniya nabadba ku caaweeye caafimaad codka rawiiliya cuqaha la cidiga ku xidhay wale cadowgaaga mudan mayaci wale cadowgaaga malaadayo cayn walbaba wale cadowgaaga malaadayo cayn walbaba curada wiiliya ragbaaha ciidda ku galeen inaadan ciil mudan ayaan cadilka baryaa cawaala wiilkiisiyo ciiddaha iga dhicin oo cadil baan ku baryaye cadda sare surno ridwaanay gabadhahaydiye gaari habaryare ridwaanay gabadhahaydiye gaari habaryare gudoomiya baato aan la gaari karin ridwaan quraxee gabdhuhu gadahaaga male gobbaa meeqa hadle wale gurti baad ka timid gobbaa meeqa hadle wale gurti baad ka timid gammaan farasrey ragoo aan lebaa ku dhalay gadoodaad leedaho waa lagu yaqaan badii boqortooye iyo bawar adag lahaa badii boqortooye iyo bawar adag lahaa xilkaan dooqaade xaalkiisu waa dhan yahay gudoomiya magacla maamusna lagu yaqaan ayaad rirwaanay taho aan ku raalinahay inaadan riiqriiqan baa runayn ka rabaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على نبينا محمد وان سلام يا دمان مدشا ومد الصوماليات وشرفت بدن له وهل كان اسكو تمد ما شاء الله تبارك الله waxaan aad iyo aad idinkaga mahad celinayaa ka soo qayb galka quruxda badan iyo sida aad noogu soo camirteen xafladda Puntland markay jirto waa xaflad Soomaaliyeed marka meel kasta oo Soomaali wax ka jiraan inaan saan u camirno oo iskugu tagno oo isgarab istaagno waa muhiim aad iyo aad baa u mahadsantihiin ma sha Allah tabaarakallah waxaan kale u mahad celinayaa afayeenka Onalef Adani Hilmoge Onalef waa nugu weyntahay waa ka midnahay waan ka mid ahaan doonaa waa ku faraxsanahay ka soo qayb galkiisa ma sha Allah tabaarakallah hadalka ma badinayno waa 27 guuradii ka soo wareegatay aasaaskii Puntland waa maalin lagu weyn haddaan nahay jaaliyadda Australia ee Puntland iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba ما شاء الله تبارك الله وحن كلو أن وهم بليين يا وهل كان أن مارت الربعين أن كحصو
dowladayda iyo ciidankayga ciidanka Puntland ee geesiyaasha guusha ay ka gaareen halgankii calmiskaad ayaa guusha calmiskaad waxa inoo soo socota insha Allah xaflad weyn oo aan ugu talagalay guusha ciidanka guusha calmiskaad ee ciidanka iyo daahfurka onkod iyadana oo aan baaragtay aan calmiskaadna ugu hambalyeynayno onkod dagaalka onkodoo la galayana aan ku daahfurayno waxaan halkan ka salaamayaa qof walba mansabka iyo magaca uu ku joogo dhammaantiin guddoomiyayaasha afhayeennada fanaaniinta abwaanada iyo akhyaarta dhallinyarada dumarka haweenka iyo intii la halmaasha dhammaan Soomaali weyn waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan idinkuga hambalyeynayaa 27 guurada Puntland السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان وادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام دبدين وقت بدنا نمسين لكن أعرف وركينا كسوكو دمان وكيل هذا سياسيين تذكر وكيل ودمان كا يعلماء الدين كبوادي السلام. سلام دبدين وحن ربا إن عن هالشيء كدر صدق. هرتوا مركي يقول رئيسي oo Puntland loo dabaaldegay aan ka soo qayb galo laakiin waxaan rabaa Puntland lama aasaasin 98 Puntland maamul kaliya loo sameeyay Puntland 1000 sano ka hor ayaa Puntland loo jiray Soomaaliya oo aan xuduud lahayn Soomaaliya oo aan calan lahayn ayaa Soomaaliya dhan Puntland aan jirtay marka xogaa sumcadda Puntland balaariyeed 7 sano ka daaya kumanaan almana gaarsiiyay dhammaantiin waa idin salaamay intaas idin xasuusinayay ridwaanna waa hambalyeynaya Puntland ha noolaato magacaygu waa Ibrahim Cabdullaahi Cali anigu oday reer Puntland baan ahay marka waa soo hambalyeynaa dhammaanteen laakiin ururka aan matalo Australia Refugees and Family Reunification ayaa la dhahaa marka insha Allah waa isla joognaa mahadsantiin runaantii aad baan idinku hambaleynayaa caawa munaasabadan quruxda badan ee guddigii soo agaasimay ee ugu horeyso gudoomiyaha jaaliyadda Puntland iyo dadkii kale ee la shaqeynayay fanaaniinta iyo siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo dhammaan marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay habeen farxad weyn bay noo tahay Puntland mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay baa mahadle kulankeena suurto geliyay waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan marti sharafta qiimaha leh ee kulanka ka soo qayb gashay aniga oo qof walba ku salaamaya magaciisa iyo masabkiisa oo meesha ku yimid maadaama la yiri warka la soo koobo tartanna lagu jiro waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto meesha aan tartamayaasha ka qayb galo waxaan ka salaamayaa dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta kadib waxaan rabaa inaan si qaas ah u sii salaamo afayeenka OLF oo maaragtay safar dheer ku yimid Ali Puntland fanaanka abwaanka Ali Puntland dadka kale waa isla wada joognay laakiin martida inta noogu cusub waa kuwaas waxaan leeyahay waa salaamantii soo dhawaada reer Melbourne waa kuwan caawa wax ka maqan male inta kadib waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto si qaas waxaan u dirayaa reer Puntland dhammaan madaxda odayaasha wasiirada xildhibaanada waxaan leeyahay hambalyo ciidamada dagaalka ku jira dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo ayaan leeyahay meel kasta la joogo kuwa gudaha kuwa dibadda intaba ilaahayna waxaan ka rajeynayaa sanadkiisa kale xaflad kale oo midaan ka sii qurux badan inaan isugu nimaano kuwaagubi iyo goortiya kundhignee Puntland taloo kuntade dowladda ugnimay ruux hadda ruux calaga ruux kuwaagubi indargaradkayo guurtida Puntland gogashaydigeen gusha lagu hatiyey hey kuwaagubi indargaradkayo guurtida Puntland gogashaydigeen gusha lagu hatiyey Puntland kaamurtay galadee badaa gobolada shanta kolba geesku hooy kaalkacyo baran gargafoor darxiin karka garacadiyo waya jooga logo karowiya karqaan boosaad sogaan xaruntii gurtiyo qara gogashadiyo
dhammaan hambalyo reer Puntland hambalyo Soomaaliya ha noolaato Puntland ha israacdo gudoomiyaha Puntland Marwa Ridwaan Cali iyadana waxa leeyahay hambalyo reer Puntland hambalyo madaxweyne Cabdullaahi Saciid Dani madaxweyne ku-xigeenkiisa hambalyo reer Puntland hambalyo 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 kadib Puntland waxay ahayd iyo waxay mudnaa halka waa laga sheegay dhammaan dadka halka hadlay taariikh badan bay ka sheegeen taariikhda Puntland ay xustay ay xuska ku galayso waxa kamid ah marka uu horeysay dawlad goboleedka ugu horeeyay ee Soomaaliya la eglo waxay noqotay dawlad goboleedka ugu horeeyay ee cadawga khawaarij iska xoreeyo waxaan leenahay laba sifo oo runtii aad u badan oo Soomaalinimada dawladnimada mataqaanaa u horshadu ay mataqaanaa ku galaysaa xuska 27ka inta kadib waxa la socotaa anagu xusuus gooni weyn oo laadahay Puntland 2014kii dawladda madaxweyne Xasan Sheekh uu hogaaminayay xilli ayada weerar siyaasadeed oo kan hadda ay nagu wado oo kale nagu soo qaaday marka sida awgeed Puntland wana garab istaagtay dadkii dhaawaca ahaa ee dhibkii loo geystay ayaa mataqaanaa ay qaadistaalada lagu soo daaweeyay aad baa Puntland mataqaanaa ugu hambalyeena gudoomiyaha jaaliyadda Puntland Ridwaan iyo marti sharafta badan halkan isugu timiday 27 sano kadib Puntland horumarkii gaartay mid la qarin kara ma ahan ilaahayna wuxuu ku guuleeyay dagaalkii bilaabeen way gabagabeeyeen annaga la bilaabnay macuusley ah hadda way naga taalaa hilbaheena banaanka noo soo duceeya dagaalku waan ku hagraday waxaan tirsanaynaa dib aad u fara badan marka qof kasto Soomaaliyeed qalbiga nooga soo duceeyo reer Puntland way isku tasteen ciidamo amisomna ma garab taagnay adduunka lama joogna ayaga xaniyooda maqlay anagu waxa weeyaan Soomaaliyo wixii loogu tala galay dawladda Xasan Sheekh jilbaha iimayligiisa ma naqaano runtaana la sheegaa ma ahan wax la qariyo dhulka heerku maray oo arkaysiin haloo duceeyo wixii qaba karana ha qabtaan waa la sheegay reer Puntland ninka jilbaha dhulka u dhigo 6 bilaa oo hartay anaguna ugu dareynaa san Puntland waxa ilaahay hormar iyo gabagaba masala bismillaahir rahmaanir rahiim adeer gacaliye mar labaad ku soo dhawow Melbourne iyo jaaliyadda Puntland adeer aad iyo aad u mahadsan tahay saanooga gudoontay hadiyada saanooga gudoontay invitationka aan ku soo dirnay invitaarada adeer gacaliye saan hore niigu sheegaba dhamaan علي حسن ورسمة بنتلان وحنا بري بنتلان حبه هذا قبل هذا مقالوين كذا خروح هذا the bounty and beauty of بنتلان أرانا بري مركا أذر قعليه هذه أذن كاجم هاد علينا مرة بعد كسر دوا أستراليا واسكت دم بين دونا thank you هيدين محلنا يا سيدا وراكسر دي سودا ويسن سيدا شرفت له iyo sida aad ii qeybayseen aniguna waxaan caloosha ku hayay inaan mar Australia imaado ilaa muddo dheer ilaahay hadduu ka dhigay aad baad u mahadsantihiin hadda waxaan leeyahay kulan wanaagsan iyo sanad guura fiican بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdiraxmaan Faratol caaw waxaan ku dabaaldegaynaa sanad guuradii ka soo wareegtay asaaskii Puntland oo maanta 27 jirsatay waxaan leeyahay ummadda reer Puntland meel walba ay joogaan hambalyo bashbash iyo barwaaqo sanadkan sanadkiisa kale ilaahay haynu ku gaarsiiyo baraaro iyo nabad waxaan aad ugu hambaleynayaa xafladda 1 Agoosto ee Puntland oo maanta si ballaaran loogu xusay waddanka Australia gaar ahaan magaalada Melbourne waxaana xafladdaas soo qaban qaabisay gudoomiye Ridwaan Cali oo ah gabadhii ugu horeysay oo jaaliyad Puntland ee Australia ka noqota gudoomiye waxaan maanta soo dhaweynaynaa xafladii sanad guuradii 27aad ee xuska Puntland First ayaa wuxuu ka dhacday magaalada Melbourne aad iyo aad ayaa loogu dabaaldegay si farxad leh marka waxaan leenahay barwaaqiyo bashbash iyo barwaaqo caawa waxaanu halkan uga dabaaldegnay sanad guuradii ka soo wareegtay 27 years ayaa ka soo wareegtay baadhigii Puntland baa caawa qabanay asxaabta iyo akhyaarta iyo marti sharafka ka soo qayb galay waxaan leenahay maalin wacan iyo habeen wacan baynu halkan ku qaadanay ku baashaalay
waxaan leenahay sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqahan uu gaarsiiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan caawa waxaan u dabaaldegaynaa sanad guuradii 27 ee Puntland runtii aad iyo aad baa xafladda looga soo qayb galay halkan waxaan hambalyo uga dirayaa ciidamada Puntland dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo meel kastoo aad joogtaan hambalyo dhammaan dadweynaha Puntland iyo Soomaalida oo dhan meel walba ka joogtaan waxaan idin leeyahay sanad guuryo wanaagsan waxaan halkan uga hambaleynayaa Puntland waxaa leeyahay sanad guuro wacan anigoo Puntland la igu dhalay aabahayna ku dhashay waa ku faraxsanahay inaan 27 sanad guuradeedii ka soo qayb galo waxaan halkan ku faraxsanahay anigoo waalidkay ka soo jeedo Puntland aniguna aan ahay Puntland inaan caawa la qaybsanayo shucuurtayda iyo farxadayda dhammaan reer Puntland meel kasta ay joogaan bismillaahir rahmaanir rahiim caawa xafladii Puntland 27 guuradii ka soo wareegatay aasaaska Puntland dhammaan halka waxa isugu timid ummadda Soomaaliyeed si qurux badan bay noogu dhacday waa ku faraxsanahay hambaliya reer Puntland hambaliya dawladda Puntland hambaliya madaxweynaheena hambaliya ciidankeena wiilkan habaryarta u ahay Ibraahim Umar Baafe waa salaamaya waxaa jira ciidan cidiisa ilaasha عرادي كيسي حكولي ويليا هوين كعروضة كقريب حواي والله العدو رابو أبطال كل ديني عروشك وهيسو كل ديني عروشك وهيسو عروشك وهيسو وانا سنة قردي لواتي تطوات مركي لاساسي دولة كبوتلان وعاوة اي جالية رير بوتلان يجالية الصومالية كلها ميالا ملبن اي عاوة سيدان قوة بالدقان إبراهيم عمر بافة ورقة الصومالي ميالا ملبن دلك الصومالي